askartii Soomaaliyeed oo lagu arkay dagaalka Tigray ee Itoobiya iyo guulo waaweyn oo ay la gaareen ciidamada federaalka Itoobiya waa imisa tirada askarta ay Soomaaliya leedahay ee jooga gobolka Tigray maxay tahay sababta ilaa iyo hadda dawladda ay u qoranayso in ciidamada Soomaaliya dagaalkaas aysan qayb ka ahayn warbixintan Milga TV ayaan ku eegaynaa balse marka hore saaxiibayaal shargareeya muuqaalkan idinkoo like-na saaraya sidoo kale valowda page-keena Milga TV si aad u hesho warar iyo macluumaad la xiriira Soomaaliya iyo caalamka waa hagaag aynu ku bilownaa xogo hoose oo helay Milga TV waxa ay sheegayaan in dagaalka soconaya waqooyiga Itoobiya ee Tigray lagu arkay askar Soomaaliyeed oo qayb weyn ka qaadanaya askartan ayaa tababar ahaan lagu qaaday dalka Eritrea balse waxa hadda la sheegayaa in ay qayb weyn ka yihiin dagaalka Itoobiya ka soconaya iyo darbaaxada kulul ee ku dhacday filaagadii TPLF ee dagaalka kula jirtay xukuumadda Abiy Ahmed ciidamadan ayaa sidoo kale guulo waaweyn ku hogaamiyay ciidanka federaalka Itoobiya sida xogta aan helnay ay tilmaamayso askartan oo tiro ahaan lagu qiyaasay ilaa 1500 oo askari ayaa qayb ka ah dagaalka hulcaya Itoobiya iyagoo sidoo kalena ku biiray ciidamo Eritrea laga keenay oo dawladda dalkaasi ay ugu deeqday Abiy Ahmed si maamulkiisa uu si adkaysto isla markaana uu iska dhiciyo ama iska difaaco filaagada TPLF iyo weerarka culus ee uga imaanaya fashil iyo wajigabax weyn ayay markan wajahaysaa dawladda federaalka Soomaaliya ciidamadii muddo ay sheegaysay inaysan qayb ka ahayn dagaalka Tigray markan waxa ay kaamirooyinka qabteen iyaga oo dagaalkaasi qayb ka ah Tigrayga Itoobiyana aad u jabiyay guulan la gaaray ciidamada federaalka Itoobiya askartan Soomaaliyeed ayaa waxa la siiyay tababar heerkiisu u sareeyo iyagoo dalkoodii hooyaan lagu soo celin balse loo wiciyay dhanka iyo dalka Itoobiya si xukuumadda Abiy Ahmed ay taageero u siiyaan sidoo kale xogtu waxa ay sheegaysaa in askartan ay qayb ka yihiin dalabka yimid Abiy Ahmed oo ku aadanaa in farmaajo uu soo diro ciidamo Soomaali ah oo qayb ka noqda dagaalka soconaya Tigray iyadoo farmaajona uu amray in ciidanka Eritrea gudaha ay u galaan dalka Itoobiya si ay u caawiyaan xukuumadda Abiy Ahmed oo wajahaysa dagaal adag oo uga imaanaya filaagada Oromada iyo kuwa Tigrayga ee TPLF dagaalka Itoobiya waji kale ayuu sii yeelanayaa isbedel weyn ayaa ku yimid dhammaanba deegaanadii gacanta ay ku hayeen filaagada hubeysan ee u dhawaa caasimadda Addis Ababa Abiy Ahmed ayaa horkacaya dagaalka waxaana laga saaray deegaano dhowr ah ciidamada Tigray iyagoo markana dagaalku u sii siqayo dhanka iyo deegaanka Cafarta Abiy Ahmedna waxa uu sheegay in guulo waaweyn ay ka gaareen dagaaladii ugu dambeeyay ay la galeen TPLF isla markaana ciidanka federaalka Itoobiya oo garab ka helaya kuwa saaxiibadood sida hadalka uu dhigay ay jabiyeen ciidamada hubeysan ee TPLF Tigrayga ayaa qayladaan u diray caalamka taasi oo la xiriirta in dagaaladii ugu dambeeyay ay la galeen Itoobiya lagu jabiyay isla markaana la adeegsaday duqeymo iyo hub casri ah oo Turkigu uu siiyay Itoobiya taas oo dagaalka waji kale u yeeshay balse arinta muhiimka ah ayaa ah in dagaalkaas kaalin weyn ay ku lahaayeen ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka lagu qaaday Eritrea si adagna ula dagaalamay Tigray iyo ciidankooda hubeysan isla markaana aagag dhowr ah ay uga jireen deegaanada Oromada iyo Cafarta lagu jabiyay ciidanka Tigray waa ay xoogan yihiin hub ayay heesaan tababarkooda u dhameystiran yahay awood ay u leeyihiin dagaalka dhulka arrimahaas iyo kuwa kale ayaa laga soo xigtay saraakiil Itoobiyaan ah oo aad u bogaadiyay askartii Soomaaliyeed ee lagu arkay dagaalka Tigray qaybna ka ahaa dagaalkaas lagu jabiyay filaagadii hubeysan ee Tigrayga haddaba daawade adigu maxay kula tahay sideese u aragtaa Soomaalidan dagaalka qaybta ka ah iyo guulaha ay ku hogaamiyeen ciidamadii Itoobiya fikirkaaga iyo waxa ay kula tahay ku reeb qaybta commentiga tan iyo kulan dambe nabadgelyo